abuukar aadan booscaato soo dhawow maanta waxaa nagala qayb qaadatay barnaamijkii cayaaraha ee b b c da tabinta tooska waana kaaga mahad celinayna ogolaashaha aad naga ogolaatay maanta inaad noo timaadid barnaamijka nagala qayb qaatay sida aa ogtihiin abuukar aadan booscaato wuxuu ku nool yahay wadanka Sweden ayuu degan yahay magaalada wuxuu degan yahay oo Sweden Stockholm ayuu ku nool yahay wadankaana London wuxuu ku yimid booqasho gaaban ayuu ku yimid oonan dib ayuu ugu noqon doonaa magaaladiisa waana dadkii aasaasay Sweden cayaarihii Soomaalida ay qaban jireen waa dadkii soo alifay juhdigana geliyey abaabulana uu ku jiriyaa oo fikradaas keenay aad iyo aad u mahadsan tahay dadkii ugu horreeyay Soomaaliya oo bilaabay ciyaal dhalinyaro inaad isu keenteen inaad ahayd soo dhow thank you legend deysane oo ah laacibkii batroolka oo aan jeclaay asi mukhtaar xunti markay taataada dheli jireen oo ku faraxsana inay ugu soo dhaweeyo studio b b c da waana kaaga mahad celinaa kal iyo laab saaxiib soo dhawow waxaan rabaa inaan ku weydiiyo Premier League hadda Arsenal 6 dhibic ayay horeysa oo City kaalinta labaad ku jirto 19 leh wararka ugu weyn waxaa la leeyahay Arsenal ma qaadayso mase Haaland qaadaya ala leeyahay runtii Haaland waa aragnay Arsenalna u jeedna marka xaaladaas maxaa adiga maxaa isleedahay والله runtii waxaa ku amaana Arsenal difaac fiican inay sanadkan 3 gool bas laga dheelay 10 ciyaar dheelay 3 gool 10 ciyaar 3 gool waa wax sahlan ma ahan difaac fiican sanadkan ay qabaan Arsenal ma dhaay binjigoodan aad u fiican waa sanadkii ugu horeysay Odegaard oo dhaawacmay oo la tabeen waa sanadkii Saliba hadoo baxo la tabeen marka sanadkan waxa u malaysaa Arsenal inay aad u fiican difaacooda Haaland بنوني بيتي وليه ما حد طبعا عيار العيار سدح يتبن جول كوي تبنوا لهاي ما أنت لابد جول ودري horta runtii aniga waxaan isleeyahay Arsenal haddii horyaalka qaado waxay ku qaadaysaa difaac ay ku qaadaysaa oo difaacooda aad u fiican saa u sheegtay 3 gool kaliya laga dhaliyay difaacooda aad u adag yahay difaacaas adag hadduu sii socdo oo qaasatan afarta dambe Calafiori iyo Timber iyo Saliba iyo Gabriel Marquez afartaas inay halbool u yihiin inkastoo laba ciyaartooy fiican ay hortaagan yihiin oo ciyaartooygii ku sheegay Zubamendi iyo Declan Rice waxaan kaloo Arsenal runtii aan ku amaanaa in 10 ciyaartooy oo kala duwan inay goolal u dhaliyeen absolutely Yogores inuu 4 dhaliyay laba Rice iyo kuwa kala hal dhaliyeen marka koox markay horyaal qaaday ama ay soo dhawaanayso waxaa ku fahmaysaa tirada ciyaartooyda kala duwan City xilliga xoogga leedahay kacsaneed ciyaartooy kala duwan oo badan goolasho dhali jiray inkastoo City naftigeeda ay kaalinta labaad ku jirto 4 ciyaartooy oo kala duwan goolasho u dhaliyeen marka hadday qaado aan saasaan isleeyahay inay difaacaas adag ay ku qaadi doonto deesan horta runtii 10 ciyaar la ciyaari la saadaali karo Arsenal formal fiican ay ku soo gashay inkastoo hogaaminayso 10 kale markii la ciyaar ayaa la kala baxaa haduu Ilaahay yiraahdo laakiin waxa aaminsanahay Arsenal inay Arteta haduu markaan qaadi waa inuu iska cagti shubo sababtoo ah Janis waa la siiyay lacag badan oo kooxda geliyay 8 oo soo Portieri ilaa 7 soo gatay marka inuu haduu markaan qaadi waayo inuu cagti furaay aaminsanahay sababtoo ah maxaa dhahay kooxdan muddo ugu dambeysay inay koob qaato ayadana labaad iyo saddexaad iyo wax socona maahan marka waxaan rajaynaynaa maarta wuxuu laakiin mana Premier League ma yareysto kooxda yareysto ugu hooseyso ay kooxda weyn dilayso laakiin ninkan waa ogtaa meel hoos ka keenay shalay markay dheelayeen Tottenham iyo Chelsea oo laga adkaanayay Tottenham ayaa dadku waxay dhahayeen macalinkan Tottenham hadiyada Frank hala dhaafo sidii Arteta kala 5 sano maxaa 5 sano loo dhaafaa ninkan nin weerar ku dheelamaba laakiin Arteta waxa loo jeeday marka dambayso inuu soo kacay halkiisan labadii sano ugu dambe horismaal 3 sano labaad oo yimid labadii sanadkan la ciyaaraa marka Arteta uu fiicnaa inkastoo Benjas laakiin wuxuu codsaday in loo gado ciyaartooy oo keensado dadka ciyaartooyda u agada waa aqlab badin oo difaaciye fiican ay u soo gadeen haddana Zubamendi unbelievable way wuxuu joogaa ma taqaanaa ishag difaac hortiisa banooni kasta asaa akhrina wuxuu dhista wuxuu ku fiican marka Arsenal sanadkan Janis fiican ay leedahay bal aan aragno may runtii Arsenal waxaan qabaa inay fursad fiican haysato haddana waxay ka faa'iideysatay Burnley iyo Sunderland oo Premier League hadda soo gala ku soo aaday Sunderland ay u tagi doonaan marka 5 iyo barka Sabtida waxaan isleeyahay Burnleyna aan dhahay Sunderland way ka adkaa karaan
hadday marka adkaadaan city iyo liverpool oo daba isku socday dhamaadaan hadday mid badiso ama labadooda ayada waxaa dan ugu jirta inay barbardhac galaan aad iyo aad si ay hoos usii dhacaan aad iyo aad city lixay ka horreeyeen hadday sii badiyaan sidii sideeday sii aad naqanaysaa iyo aad waa aad sii kordhisana aad iyo ayaga aad dan waxaa ugu jirta inay barbardhac ay aad naqdaan aad iyo aad laakiin cityna haddii aan dhinaceeda fiiriyo halan runtii qofaan halanayn maba haystaanba hadda aad oo iyo gool aad dhali iyo karo aad iyo aad maanta si aad u fiicnay runtii waagii hore garbaha waxay dhali jireen doko iyo ciyaaryahankii kale maanta sabinio goolka xataa ma toogan maanta goolay dhaleen iska dhaafa hal cabsiya ay ku sameeyaan ma jirin waagii hore mahriis iyo marka ay joogeen goolay dhali jireen ragga geesa iyo sterlin iyo waa taa ku sheegay city awal waxay aad brush ay saari jireen si kooxaas disho ota ugu soo ay bixin uga soo baxeen aad iyo aad sababtoo ay geesa fiicanayso gool dhal Kevin De Bruyne dhexda ka dhigeen hadda Phil Foden hal gool mise laba gool oo dhalay Phil Foden shirki ilaa hadda Premier League wax ma dhalin marka ciyaartooydooda dhexda ka dheelana goolal badan ma dhaliyaan difaacooduna ilaa hadda wax madax ku dhaliya male oo madaxa waagi hore xataa goolay ku dhali jireen marka ani waa qabaa city haddii horyaalka qaado ama ay meel timaado ay soo dhawaato halan inuu mas-uul ka yahay meeshaas sababtoo maanta saan u jeednay kubadda dii loo dhigo waa tegaba ninkan 4 gool oo dhali kara maanta mid kale oo la galaa jirto oo goolayaha raba inuu ka kor qaado Bergevich laakiin goolayaha aad iyo aad u fiicnay gacantuu iskaga qabtay marka daysan hadda intaas bal maxay kula tahay Chelsea Manchester United Tottenham ayagaas waxay ahayd dadka ugu badan challenge ku jiro sida Arsenal horta waxay derbi waa Tottenham markii la ciyaarayso Chelsea sidoo kale marka maxay kula tahay Chelsea iyo Manchester United iyo kaalintee maaragtay adi maadaama qabiir sport tahay ani waxaan is leeyahay horta Liverpool Arsenal City way imaan doonaan meesha laakiin su-aasha waxay ka taagan tahay soo raaci doona ma Chelsea soo raaci doonto ma United ma imaan doontaa inkastoo shalay barbardhac ay saacadii ugu dambeey geliyeen marka ayagana waxaan ka ogaa doonaa guriga Tottenham ayay waxay tegi doonaa sabdiga 12 iyo barka saacadda UK markay tahay Chelsea aad tagtay oo ku soo garaacdo wili awooday tustay Chelsea oo Tottenham haddii ma United ay intay Tottenham timaado ee awood u sheegata ay garaacdo waxaan qabaa kaalinta afraad inay imaan doonto oo ay soo daysan dhawaanayso Tottenham maxay tababaraan Tottenham waa koox lacag la weyn tababaraan Bournemouth ha waa tababar aad u fiican waa qaladka ugu weynaa eeba galeen inay waxay soo qaataan ahayd hadda tababarahan aan maanta aragtay 3 ciyaartooy Liverpool ninka karkiisa la dhahay ayagaa laga keenay ninka Real Madrid difaac u taagan Hosen ayagaa laga keenay PSG Elias ayagaa laga keenay waa fantastic waa 3 nin oo difaacood hadda maanta difaacooda City waa geli lahayd kubad say iskugu dhiibayaan ninkan kooxda wuxuu ka dhisay adkaysiga uu ka dhisay maanta markana ma istaageen aad iyo aad kubad haysashada ayaga ka fiicnaa aad iyo aad waxaa ka dhinay keliya afka hore cabsi kuma hayn laakiin sida kale kubad isku dhiibidooda dhaqaaqooda dagaalanka koox maba u ekaba oo macnaha kooxdan maanta hadday gurigooda joogi lahayd waxaan qabaa in City si fudud looga badi lahay ayaan aniga aan isleeyahay marka Bournemouth tababarooda Orala nin ma aha oo runtii ma United qaladay gashay asi inay qaadatay ahayd Tottenham asiga inay qaadatay ahayd laakiin ani waxaan qabaa inuu koox weyn oo helayo ayaan aaminsanahay 100% ninkan tababare aad iyo aad u fiican waay marka barnaamijkeeni uu nagu soo dhawaaday marka adiga maxaa is leedahay horyaalkan horta waxaan rabaa inaan ogaado kooxdee taageertaa horta aniga daysan waxaa ahay Arsenal weligeena waa taageeri jiray oo madlema ka ahay Arsenal oo daysan ciyaaraha badan waa ka qayb galay bari hadda ma ahna taa koox dadkan ma joogin garoomadii mataqaana xaafidiina ma jiray xilligii koor taa hadda Champions League oo finaalkii waa joogay oo Paris lagu ciyaaray Barcelona 2-1 noogu dhalinaysa oo Rosana la siinay labada gool waxa laga dhalay Eto iyo Belletti la dhalay Van Persie soo hadalka hadee waxaan arkaya soo dhahayo Arsene Wenger intuu wuxuu dhahay adiga ciyaartoy weyn oo fiican ma tiid waa inaan noqotaa ciyaartoy weyn oo magac la isu soo saartaa markaas wuxuu igeliyo dhahay niido macnaa ay dhis inaan is dhiso markuu is dhisana nin qatar noqdo waa Team United ay gadatay oo goolish u dhalinay Van Persie absolutely wiligiis fanaan waay ninkaas aad u jecel ciyaartiisa talentii waa nin aqli badan markuu maaragtay bidixda ku qabsadana
goolkaas maaragtay gool waay aad iyo marka adiga sanadkan waxaa isleedahay Arsenal sanadkeedu sanadkan waaye Arsenal waaye ani adoo laakiin taageeranimada taageernimo waa sanadkan waxaa mid ka weyn Arsenal difaaceeda waa isdhistay bakineeda waa isdhistay afka hore waa isdhistay dhaawacaa ka maqan 4 nin waa usoo noqonayaan 4 nin marka Arsenal awood ay lahaa jirin ayay hadda la soo baxday marka waa arkaynaa bal maaragtay haddii horyaalkan uu ka qaadi waayo Arteta inuu cagta furaad aaminsana ani waa mahadsan tahay laakiin ani waxaan isleeyahay sidaan hore u sheegnabo Arsenal hadday ku guuleysato difaacay kula guuleysaysaa oo xilligii City iyo club oo weerarka isdaba jooga kooxaha ku qaadayeen 5 iyo 4 ilaa hadda koox oo Arsenal 5 gool ka dhalisay ma jirtaa afar gool dhalisay Leeds ay ahayd Leedsna waa ka dhalisay Atletic waa ka dhalisay lama rabo Premier League Leeds bas ka dhalisay Leeds ay ka dhalisay Leedsna hadda Premier League soo gashay markaan aragno kooxihii ayagoo 4 ka dhalinay kooxaha waaweyn iyo 5 markaas waxaan dhihi karnaa waxay ku socotaa xawli macnaha horyaal oo waxay qaadaysaa oo macnaha hadda Barcelona iyo Real Madrid oo kale tababarayaasha ayagoo horyaal qaadaa la raacdeeya sababta loo raacdeeya maxay tahay mataqaan waxaa loo raacdeeyaa inay horyaal qaadayaan waa ogyihiin laakiin cayaar fiican inay soo bandhigto taas ayaa keento in oo nimankan culays ku cayaar fiicanna waa lagaa rabaa horyaal inaa qaadana waa lagaa rabaa taasaa marka keenayso marka saaxiib waa mahadsan tahay aad aadaan kaaga mahadcelinaa si sharafta leh amaanta igu soo dhaweysay thank you saaxiib thank you